أتما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تاسو نبي قريري سوق جعلا عمر بن عاص با ويدي نبي سؤاشاس عمر بن عاص با صحابته كو أورنجري صحابة النبي محمد أنو يقول جعل ياهي كو صلي رسولك صلى الله عليه وسلم مركز الله يقول وركدا مي أنو يقول جعل ياهي وركدا مي وان ويدين صلاة مركز لقى بحيب عمر استاقي يقول يا رسول الله داتك آيات يقول جعل شايشك مركز النبي يقول عائشة أنو يقول جعلها يبيودي إنك ما دعي كرتان إنك إنه الرجل هرتي ذكور هذا وأنا دوم مركز إسلام تاسع أنو يقول جعلها وذكحشون لكن عمها نبي يقول شيء مجتمع وكورشة وحيري حاسدتك وحنا نقول جعلها عائشة مركز سوري ما يدو مركز جماعة الرجع مركز سوري أبيهد وكما أبو بكر مركز هدنا مركز عمر مركز عمر بن عاص حاضي بيجوا واسكا مصيبة يودي حاضوا مستال لقوله وحيري وحن كبا قينو النبي يقدك كوكودم بيجودي مركا آمس قال لي قاتي يقول وسكا آمس مركا عمر لذلك النبي يقول عايش وحاسس كي سوق جعلا مسألة دانا كلا دورشة النبي يقول وكبلا بعد وحاسس كي سوق جعلا حول عائشة سوا فريسو آياتها القرآن كادو شيء دكو سود دقي وكلا دور بدشو إلهي يا رسول كيسا يا جنة أردنعة دنعة كلنا الديود الزينة ده أردنعة لبدا كلا دورو weliba inan yar baa tee go'aan qaadashada ha ku degdegine tala haddaan ka bixiyana waxaa ila quman inaad aabbaha abibakar iyo hooyada aad la soo tashato markaa bay caaisha tidhi ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada ayaan aabbaha iyo hooyaday ka talagelin may ka talagelin maaya bay ku tidhee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aakhirada ayaan doortay maanta intay ka dambaysana adduunya dambe kugu hadal qaadi maaya bay ku tidhi markaa buu nebigu farxay calayhi salaatu wasalaam markaasay ku tidhi nebi allow sida aniga aad ii weydiisay soo xaasaskaagana u weydiin maysid markaa buu yidhi haa iyakana waa ku socda adaan kaa bilaabay waxay tidhi haddaba anigu mowqifkayga aan doortay adiga ha iiga sheegina iyakana weydii bay ku tidhi taladooda halkaa markaa maseer yar baa ku jira soo ma markaa buu nebigu intuu qoslay buu ku yidhi wallaahi hadday ayaku i weydiiyaan ay igu yidhaahdaan caaisha ayay dooratay أنا كقرين ما يبغى رسولك يودي يعني سيدا أذيك وناقي الجنة كولا الربان يكنا ولا الربا جنة ويان وأنا امتحان أرنتو واختبار ويان ولا ليه إلهي هي الرسول قيسية جنة دور دنعة هي أدويدي الزينة دور دنعة كلا دورتا وخيار عجيبة وامتحان ويان اختبار مرقاب النبي يقول لي هاي عائشة هدي يكون يويديان يقول هذا عائشة أي دورة النبي الله way ogyihiin inuu nabigu Caaisha uu jeclaa iyada ka soo bilaabayo anaguna ka qarin maayo wallahi waan u sheegi buu ka yidhi ishra saasuu nabigu dumarkiisa ula dhaqmaayay ghazwatu khaybar markii dagaalka lagu qaaday lagu duulay gabadhii ugu quruxda badnayd markaa ayay nabiga u dooreen asxaabtu u doorbideen Safiyata bint Huyay radiyallahu anha ummul mu'miniin bay yiraahdeen nabi allow tan adigaan kugu deeqnay qaada bay ku yiraahdeen way qurux badan tahay markaa buu nabigu yidhi wallahi waad ii garateen buu yidhi ugu qurux badnayd dadka waa hagaag caaisha nabigu yidhi xafsa uu yidhi caaisha iyo xafsa kaalaya gabadhana laysiiye dadkii la soo qafaashay baa layga soo dhex doortee aroos baan he ii soo diyaariyey buu yidhi ordo ii diyaar garaya reerihiisa nebigu ma dhaqaalo ku wada mise akhlaaq badii sheega yaa ma dhici karta waa waxa inaga zamankeenna waa mustaxiil inuu ninku labadiisa dumar uu qabay uu ku yiraahdo na gabadh yar baa la isiyoon guursaday bal ii soo diyaariya way adag tahay Soomaa waxa uu nabi maxamed reerihiisa ku maamulay waa akhlaaq weeyaan waa khuluq lacag ummadda laguma maamuli karo reer lacag laguma dhaqi karo reeraha waxa lagu dhaqaa waa dhaqanka wanaagsan weeyaan lidaalika nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mathalu la'la budin walbaha way qaadeen habeenkii bay u diyaariyeen salaadii cishaa markay gaadhaa saxaabadu nabiga soo galbiyeen markii aqalkii loo dhawaaday buu nabigu saxaabadii ku yidhi warde reerkaygii baan u tegiyay iga hadha buu ku yidhi markaas innakana maasha allah dee aroosyada zamankeenan ilaahay haynoo dembi dhaafa bas bal arooska nebi maxamed dhibyaridiisa eega caroosadiina labadana u diyaarinaysa xafsa iyo caaisha
isagiina salaadii cishay markuu saxaabada soo tujiyey hareeraha ka soo mareen aqalka markuu u soo dhowaadayna iyakiibuu la kaftamo wuxuu ku yidhi warde caroos baanay reerkaygii baan u tegiyey dee maxaad iga daba qabanaysaa niga hadha buu yidhi deedna markaasay qosleen xishoodaynay ka hadheen caaisha iyo xafsa ka soo baxay marka aqalkii markii nebiga maqlay inuu soo socdo markaasuu yidhi haye bal warrama maxaad aragteen caaishaa tidhi dee maxaan aragnay yahuudiyad baan aragnay oroda u teg bay ku yidhahdeen way qurux badnayd baa la yidhi way ka wada qurux badnayd marka weliba xafsaa hadalla adag ku sii hadashay markaa buu nebigu ka daba hadlo yidhi xafsa itaqi allaah ilaahay ka yaab ma cadhoon ma dagaalamin ma qaylyin bal siduu nebigu ula dhaqmay reerihiisa eeg wuxuu yidhi xafsa caaisha gabadha waa muslimad way islaamtay ilaahay ka baqa markaasay leeyihin waa yahuudiyadada u teg bay ku yidhahdeen markaa buu nebigu u soo galay calayhi salaatu wasalaam maalmihii carooska ahaa maalintiina saxaabadu nebigu la joogaa dumarkaa markaa u yimaado markaa gabadha way u weheliyaan oo waa u sheekeeyaan maalin maalmaha ka mida buu nebigu u soo galay safiya iyadoo ooyeysa markaa buu nebigu ku yidhi safiya maxaad la ooyeysaa ii sheeg waxay tidhi yaa rasuul allah dumarkaaga qaarkood dhib bay igu hayaan aniga waa teeyete caaisha iyo xafsa oo maxay leeyihiin dee waxay igu yidhahdeen mar walba yahuudiyad baa tahay dee markaa buu nebigu ku yidhi ayakuna maxay leeyihiin de annaguna gabdha carab baa nahay carabiyaad baa nahay annagu adiguna yahuudiyad baa tahay markaa buu nebigu ku yidhi dee adaa ka nasab fiicane haddii xagga nasabka la eege adiga aabbaha waa nebi nebi haaruun bay ku abtirsanaysay baa la yidhi aabbahaa waa nebi adeerkaa waa nebi ciise nebi muuse zawjkaagu waa nebi maxamed adaa ka laandheeraysan buu ka yidhi ee markay kuu yimaadaan iska celi saa ugu jawaab maalin dambuu nebigu yimid ee safiya bintu xuyay oo aad u faraxsan bal warran waxay tidhi maanta dumarkaagii taan ku dhigay waa la yaabay tidhi oo maxaad ku tidhi dee kelmadday igu odhan jireen bay iila yimaadeen yahuudiyad markaasaan ku idhi naa yahuudiyaddoon baad igu haysaane aniga aabbahay waa nebi haaruun calayhi salaam baan ku abtirsadaa adeerkayna waa nebiyullaahi muusa calayhi salaam waa kaliimullah odayguna waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bal middiinna intaasoo nebi kulansatay halkaas soo dhigaan ku idhay tidhi sheegaan ku idhay tidhi markaasay afka qabsadeenoo way iga yaaceen bay tidhi maanta halkaa un dee ka wad buu nebigu ku yidhi saa dumarka iskaga celi yani xayaat alcishra balag nebigu siduu dumarkiisa u kala badbaadinaya eeg waan run waxuu nebigu ku hadlaayo qofka nasabkiisu wuxuu qiimo ku yeelanayaa ina akramakum cinda allaahi atqaakum haddii iyaka ay gabdho carbeed ay yihiin oo xafsana cumar u dhalay caaishana waa abubakar u dhalay adigana nebi haaruun baad ku abtirsataa adeerkaana waa nebi muuse waa kaliimullah haddii nebi maxameduu ni wada iyaka uu qabana dee adiguna nebi maxamed waa ku qabaa buu ka yidhi nebigu marka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa inoo qudwa marka nebigeenna haddaan guul doonayno liibaan doonayno cizi doonayno sharaf doonayno waa inaan nebigeenna raacnaa hadba inta ummaddu dhaqankii nebi maxamed aan ka sii fogaanno waxaad ogaataa ilaahayna waa inaga fogaanayaayo ogow ghaswatu uxud ayaa darsi baa duruus baa ayaa ku duuban duruus ibn qayim aljawsi raximahullah fii zaad almacaad buu kaga warramay inta masaa'il uu ka soo saaray sheekhaasi fii ghaswati uxud hadday axkaam tahay hadday cibar ay tahay hadday taariikh tahay hadday siiro tahay hadday hadyi tahay ma malayn karaysid jamaacuu nebigu soo qaaday jamaaco jabal rumah buurta la yidhaha buu nebigu jamaacaddaa uu dhigay waxa uu nebigu kula dardaarmuu ku yidhi haddii aad guulaysannood aragtaan iyo haddii kaleba ininku halkaa ii jooga buu rasuulku ku yidhi judhii u horraysaba muslimiintu way guulaysteen waa la jebiyey gaalladii khaniimadii baa la guranayaa jamaacaddii nebigu buurta uu dhigay ee xagga dhabarjebinta uu nebigu u dhigay inay ka ilaaliyaan way kala jabeen markiiba qola waxay yidhaahdeen way guulaysteen muslimiintiiyo waa kuwa khaniimadii guranayee ina dhaadhiciya amiirkii jamaacaddu wuxuu yidhi may war ha degdegine nebiga ha khilaafine
أمر النبي بان ميشا كو جوغنايا هالكا جوغا مي دقالكي دما قوشي مسلمين تين راعدين دادعية مي way kala jabeen jamaaca way dhaadhacday oo khaniimadii bay ka qayb galeen inay muslimiinta la gurtaan laakiin jamaaca buurtii bay ku hadhay jeyshkii maaragtaane fardaha khaalid ibn alwaliid oo maalinta aanan muslim aanan ahayn ciidankii uu watay ee fardoolayda ayaa dhabarjabin intay xagga dambe ku soo sameeyeen jamaacaddii buurta ku hadhay amarka nebi maxamed ku sugnaatay ilaahay waxa uu ku deeqay inay noqdaan wada shuhado maxay noqdeen شهادة إلهي ودسيي جماعة النبي أمر كي سجب السينة داوعي يك كلية مسو قارينه بل مسلمين تودن مالين داوع واقاري تضبعات صحابة النبي محمد كمدا كل شهيدي او نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بمالين داوع على قارسيي سببتنا وامحي وجماعة دابورت الدول جوكت اسخلافتي ويان الدنيا جعل با إلهي كل شيء ما شيء يمدي عصيان با دعايو النبي محمد أمر كيسي هدين للجبيي وحدو قاتان قرقارك والرفع مياه لذلك ابن عباس رضي الله عنهما يا ونجري لبا نبت قليا إلهي أمد السيي لبا دا نبت قليا مد إلهي وينقا قاتي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام من نوع استغفارتي وأمد الله الرابي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون با إلهي يدي انت أدوك أمد هذا دحجوكتنا عذاب من با إلهي يدي انت أمد هذا دمداف إلهي أي ويدي سنيان إلهي أي أصو نغنيانا